بسم الله الرحمن الرحيم. داوديال كلنتي wanaagsan meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo kala socotaan warbaahinta Caalam Media anigoo Cali Rashid Maxamed aan idin la socodsiinayo. Daawadayaal barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan xaaladii ugu dambeeyay dagaalada Israa'iil iyo Falastiin halka ay xaaladdu marayso dhimashada Falastiiniyiinta qasa ku nool oo xadka sii dhaafaysa sidoo kale duqeymaha Israa'iil aan loo meeldayn oo si indhalaan wali ugu hoobanaya magaalada Gaza. barnaamijka daawadayaal sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona khilaaf u dhexeeya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madaxda Israa'iil oo kor u sii kacaya. Mareykanka oo walaac xooggan ka muujiyay warar joogto ah oo ku socda saldhigyada uu ku leeyahay Ciraaq iyo Syria. daawadayaal barnaamij sidoo kale waxaan uga hadli doonaa qaramada midoobay oo dalbanaysa in shidaal degdeg ah lala soo gaaro isbitaalada magaalada Gaza si ay u sii shaqeeyaan iyo militariga Israa'iil oo diiday in shidaalka loo ogolaado magaalada Gaza iyagoo ku eedeynaya in Xamaas uu gacanta u geli karo. daawadayaal sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka noqon doona Falastiiniyiinta ku dhimanaya xabsiyada Israa'iil oo sii kordhaya. maxaa sabab u ah Falastiiniyiinta oo dalbanaya in baaritaan lagu sameeyo arrinta dhimashada maxaabiista Falastiiniyiinta ee xabsiyada Israa'iil ku jira. daawadayaal mar kale soo dhawaada video noo share garay YouTube-kan subscribe noo saara. daawadayaal sidoo kale waxaan idinka raali gelinayaa in maalmihii la soo dhaafay aan wax muuqaala iyo warbixin idinla soo wadaagin xaalado iyo mashquulo jira awgood. raaligelin ballaaran ayaana taasi ka bixinaya. daawadayaal idinkoo nagu dhiirigeliya in share iyo subscribe aad noo saartaan YouTube-ka iyo fiidiyoyada. aan ku bilownay xaaladda magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Israa'iil ay duqeymaha xooggan ku hayso ayaa weli sii kordhaya iyadoo dhimashada dadka Falastiiniyiinta ay xad dhaaf noqotay. maalmihii la soo dhaafay waxaa la sheegay in dadka dhimanaya ee Falastiiniyiinta ay aad u sii kordhayeen iyadoo duqeymaha Israa'iil si xad dhaaf aan ka fiirsi lahayn ay ugu daadanayaan xaafadaha magaalada Gaza. warbixinadii ugu dambeeyay warbaahinta Al Jazeera ay soo daawacayso ee la xiriirta dadka Falastiiniyiinta ee ku waxyeelay duqeymaha xooggan ee Israa'iil ay ku garaacayso xaafadaha magaalada Gaza ayaa sheegaya in 6,000 oo qof oo dad ku dhow ay ku geeriyoodeen halka 16,000 dadka badanna dhaawac uu ka soo gaaray. sidoo kale daanta galbeed Israa'iil ay haysato ayaa la sheegay ciidamada Israa'iil ay ku dileen dad 100 qofood ku dhow halka 2,000 oo qof ku dhawaadna ay ku dhaawaceen. Israa'iil dhankeeda waxay qiran tahay in 1,405 qofood dagaalada ay uga geeriyoodeen tan iyo 7 bishan Oktoobar. sidoo kale dad gaaraya 5,431 qofoodna ay ku dhaawacmeen. marka laga yimaado duqeymaha xooggan ee soconaya weli waxaa go'doon ku jira magaaladaasi Gaza oo dadka ku nool loo ogolayn shidaalka, biyaha, isgaarsiinta, caafimaadka guud ahaan wixii nolosha aasaasiga u ahaa. 2 maalin oo gargaar bini'aadanimo qaybo ka mid ah la soo geliyay magaalada Gaza kadibna waxaa la gooyay gargaarkii soo galay Israa'iil ay hor istaag ku samaysay mar kale. hay'adaha qaramada midoobay ee caafimaadka iyo bini'aadanimada ka shaqeeya dalbanaya in si goobaha caafimaadka u sii shaqeeyaan loo baahan yahay gargaar degdeg ah oo dhanka shidaalka ah. hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa dalbatay in shidaal degdeg ah loo baahan yahay si xarumaha caafimaadka magaalada Gaza ku yaala oo dhaawacyadii ay buuxdhaafiyeen ay u sii shaqeeyaan. madaxda caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay xilligan wixii ka dambeeyay haddaan shidaal la helin xarumaha caafimaadka aysan wax dhaawaca qaabili karin. wararka sidoo kale Gaza ka imaanaya waxay sheegayaan in karfantii dadka lagu duugayay laga waayay guud ahaan magaalada Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay ogolaan doonin in wax shidaal la geliyo magaalada Gaza. afhayeenka ciidamada Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in shidaal haddii la geliyo magaalada Gaza uu gacanta u geli karo kooxaha Falastiiniyiinta ee wax iska caabinta gaar ahaan Islaamic Jihad iyo ururka Xamaas. Israa'iil dhankeeda waxay haystaa taageero buuxda oo reer galbeedka uga imaanaysa waxaana ugu dambeeyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku tagay Israa'iil kaas oo sheegay inuu taageero buuxda la garab taagan yahay Israa'iiliyiinta. hase haatee dhanka Carabta Falastiiniyiinta way ka gaabiyeen taageerana ma siiyaan afka oo laga cambaarayo oo kaliya markii laga soo tago weli taageerada ay u baahnaayeen maysan helin. waxaana wasiirka arrimaha dibadda Jordan uu ku dhawaaqay in dalkiisa Jordan aanu marna aqbali doonin kana hor imaan doona in shacabka Falastiiniyiinta laga qaxiyo deegaanadooda. wasiirka arrimaha dibadda Jordan Ayman Safayadid ayaa sheegay inuu ka digayo xaaladaha dhibaatada badan ee ku soconaya dadka shacabka ee magaalada Gaza haddii caalamku ka aamusnaado golaha ammaanka uu tallaabo qaadin lagu joojinayo dhibaatooyinkaasna xaaladdu ay kasii dari doonto. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu wada hadal telefoon la yeeshay dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman kaas oo kala hadlay si diblomaasiyadda loo sii kordhin lahaa si xaaladda halkay hadda marayso wax isbedel looga sameeyo. hase haatee arrintaas ayaa waxaa loo arkaa inay tahay madadaalo iyo laabqaboojin carabta loo sameynayo iyadoo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanku uu dhawaan shaaciyay inaysan ahayn xilligii xabad joojin laga dhex samayn lahaa Israa'iil iyo Falastiin. Mareykanka dhankiisa wuxuu walaac xooggan ka muujinayaa weerarada
saldhigyada ciidan uu ku leeyahay Ciraaq iyo Syria ee sii kordhaya. Mareykanka ayaa sheegay in 10 mar weerar loo geystay saldhigyada Ciraaq uu ku leeyahay, sidoo kaleetana 3 mar la weeraray saldhigyada uu ku leeyahay dalka Syria intii u dhaxaysay 17 ilaa 24 bishan. Pentagon-ka Mareykanka ayaa walaac xooggan ka muujiyay weerarada sii kordhaya, waxayna sheegeen in xaaladda haddii sidan ay ku sii socoto dhibaatooyin xooggan oo kale laga yaabo in gobolka uu wajaho. Dhanka kale, Israa'iil waxay sheegtay in gantaalo looga soo weeraray dhanka Suuriya laguna soo weeraray buuraleyda Golan Heights ee Suuriya ka haysato ay jawaab ka bixiyeen. Jawaabta nooca ay tamaysan sheegin, laakiin Israa'iil dhawaan waxay duqeysay ayraboorada magaalooyinka Dimashq iyo sidoo kale Xalab. Waxaa la sheegay Iiraan inay taageertay ku sugan Ciraaq iyo Syria ayaa dhowr mar ku hanjabay inay weeraro xooggan u geysan doonaan Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka intaba. Sidoo kaleeto Xisbullah iyadoo Iiraan ay taageerto ayaa weeraro dhowr ah ka fulisay xuduudka u dhexeeya Lubnaan iyo Israa'iil, iyadoo gantaalo xooggan la beegsatay qaybo badan oo Israa'iil ka mid ah. Sidoo kale kaamirooyinka xuduudka lagu xirayna burburisay. sidoo kale madaxda Israa'iil iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa khilaaf xooggan soo kala dhaxgalay, iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu dhaleeceeyay dhibaatada xooggan oo Israa'iil ay ka wado magaalada Gaza iyo dhulka Falastiiniinta guud ahaan. Safiirka u fadhiya qaramada midoobay Israa'iil ayaa ugu baaqay xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu xilka iska casilo. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cohen ayaa sheegay inuu joojiyay kulan la filayay inuu la yeesho xogayaha guud ee qaramada midoobay kadib markii uu dhaleecayn u geystay Israa'iil, taas ay ku sheegeen inay tahay arrin uu ku qaldan yahay gardarrada ugu geystay Israa'iiliyiinta. dhanka kale, daawadayaal waxaa walaac xooggan laga muujinayaa Falastiiniyiinta ku xiran xabsiyada Israa'iil oo maalmihii lasoo dhaafay dhimashadooda ay sii badanaysay. muddo maalmo kooban gudahooda, Falastiinigii labaad ayaa ku geeriyooday xabsiyada Israa'iil ay maamusho, taas oo walaac xooggan ka dhex muujisay dadka Falastiiniyiinta iyo guud ahaan wadamada muslimiinta. Hay'adda Xuquuqda Aadanaha Falastiiniyiinta ayaa ka dalbatay bisha cas ee caalamiga inay baaritaan ku sameyso dhibaatooyinka ka taagan iyo waxyaabaha keenay dhimashada dadka Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israa'iil. Carafaad Xamdaan oo 25 jir Falastiini ah, daanta galbeedna laga soo xiray, ayaa la sheegay uu geeriyooday, waxaana maalmo ka hor sidaas oo kale geeriyooday nin kale oo Falastiini ah oo 58 jir ah laguna magacaabo Cumar Drahan oo ku xirna xabsi Israa'iil ay maamusho. maxaabiista Falastiiniyiinta ee xabsiyada Israa'iil ku dhintay ayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Falastiiniyiintu waxay aaminsan yihiin in dhibaato xooggan oo keeni karta inay geeriyoodaan laga yaabo in Israa'iil ay u geysteen iyagoo gaar gudanaya dhibaatadii xoogganeed ee kooxda Xamaas 7 bishan ay soo gaarsiisay Israa'iiliyiinta. dad badan ayaa ka digaya dhibaatada oo sii baahda iyo duqeymaha oo sii socda inay keeni karaan dagaallo hor leh oo gobolka ka qarxa, iyagoo saameyntooda yeelan kara siyaabo kala duwan looga digayo in dagaalka oo sii socda uu dhib kala dhalin karo. daawadayaal, intaas ayaynu ku safmeerina qodobkeennii koobnaa oo nuga hadlaynay xaaladda dhulka Falastiiniyiinta ee duqeymaha xooggani ay ku wado Israa'iil. intaan barnaamijkan la mid kulmayno waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.